وبركاته. دمان أنت ماشي سوقت مرتي شرفك أقوي هالندى وضياشة هويوينك أردادي يرير المها قونتا أنت وايد والسلام سلامك بعدي. runtii ma ku talagelin inaan ka hadlo meeshan mana la yani ogeysiinin inaan hadlayo waa sii diyaarsan lahaa hadal balse waxaa yani inta badan hadalkii qaatay odayaashii iga horeeyay iyo bariyo oo ma sha Allah yani inta badan faahfaahin iyo intaba bixiyay runtii waxyaabo qeyra ku gelinaya meesha ka muuqda oo in la soo saarayo dhalinyaro jiil cusub ah wax la barayo haweenkii mataqaanaa mashruuc loo sameynayo dhalinyaradii baagamuundada ahaa mashruuc kale loo sameynayo waxyaabo aad u yani cajiib oo yani qurux badan oo wax qabad fiican la waaye laakiin haddana waxaan rabaa inaan la hadlo dadka intaas loo sameynayo inaan wax yar oo dardaaran ama waana aan ku soo celiyo geedka sidiisa waxa loo beertaa in la harsado geed haddii la beero uu yani miro dhali waayo wax uu taraya male marka geedkii miro dhalay oo yani lagu faa'iido inaan noqotaan oo kii aan miro dhalina hoostiisa in la harsado waxyaabahaas oo dhan yani in la idinka helo aad dadaashaan aadnaan dhihin yani maxaa la walaxa soo baratay bas waa yani waa kugu filan yahay inaad dib u sidii hadda yarkii muxuu ahay ina muxuu ahay ina Axmed uu sheegayay yani inaan ka qayb qaato يعني dhalinyarada kale oo hadda soo baxayso iyo walaalkeen ama wiilkayga saas oo kale uu lahaa qof walba hamigaas inuu galo uu dareemo inay dad ka dambeeyaan in mataqaanaa maxaa la yiraahdaa fikirkaas uu yeesho waa loo baahan yahay waa idin bogaadina maajay runtii waxa waaye dad hawl badan oo yani wax qabad leh oo natiijo fiican ay ka soo baxday dad qabtaa tihiin annagana waa idin garab taaganahay waa idin ku dhiirigelinaynaa wixii karaankeenana waa idin kala qayb qaadan doonaa haddii ilaahay yiraahdo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh